waxaa la yiri dadku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood, kuwa ku dhiirigeliya, ku garab istaaga, sidoo kalena gacanta ku qabta. marka aad tahay mid u ooman helida cid ku garab istaagta, ku noqdo rajo iyo shumac aad ifsatid maalmaha madow ee noloshaada, dareemaya dareenkaaga, tixgelinayana baahidaada, sidoo kalena ku noqonayo buundo aad ugu gudubtid nolosha aad ku taamaysid, iyo kuwo hamigoodu nolosha uu yahay dilida rajadaada, daminta iftiinkaaga, la dagaalanka yoolkaaga, iyo ku beerida qalbigaaga nooc walba oo ay leedahay cabsidu, si aad u noqotid mid dabran oo aan awood u yeelan koritaanka salaanka dheer ee nolosha, rajadooduna tahay inay wehel kula noqoto marinka qaraar ee guuldarada, ama ay ku diidaan gaarida meesha ay gaareen. muuqaalkan maanta daawadayaal waxaan uga hadlaynaa waaqaca adag ee dhalinyaradeenna. kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad daawato muuqaalkan, ha ilaabin daawade inaad subscribe saartid channelkan, sidoo kalena aad like saartid. mahadsanid. haddaba aan gudagalno muuqaalkeena maanta. ka hor intaynaan u gudagalin muuqaalkeena, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa jiray arday dhigan jiray iskuul. wuxuu ahaa mid ku suman caqli yaraan, sidoo kalena ay ku eegi jireen dhammaan ardaydii fasalkiisu indho liiditaan iyo jees ku dheehan yahay, heer uu aaminay inuu yahay caaqibo beel aan waxba kusoo kordhin karin fasalkiisa. waxayna u noqotay aamusnaanta iyo afgaabnidu sumad uu kaga gabado ka qayb qaadashada dhammaan dhacdooyinkii fasalkiisa, sidii uu nolosha cabsida iyo kelinimada ku dheehan tahay uu ugu noolaa. waxaa dhacday in maalin maalmaha ka mid ah oo maqnaaday macalinkiisii fasalka, booskiisana uu buuxiyey macalin aan wax ugu dhigi jirin fasalkiisa. wuxuu bilaabay qoridda iyo sharaxaada cashirka. sharaxaad kadib wuxuu su'aalo weydiinayay ardayda, wuxuuna si kadis ah su'aal u weydiiyey ardaygii aan kor kusoo sheegnay, wuxuuna si cabsi iyo kalsooni daro ku dheehan tahay ugu jawaabay su'aashii. laakiin waxaa hal mar fasalka isqabsaday qosolkii ardaydii asxaabtiisa ahayd. macalinkii oo ay ka muuqato layaab iyo isweydiin uu maankiisa ku weydiinayay sababta qosolkan keentay, ayaa garowsaday in ardaygaasi uu xambaarsan yahay culays da'diisa ka weyn, isagoo indhaha ardayda ka akhristay inay ka aaminsan yihiin arday doqon ah oo aan caqli badan lahayn. markii ay dhammaatay xiisadii, ardaydiina ay baxeen, ayuu macalinkii u yeeray ardaygii. kadib waraysi kooban, wuxuu garowsaday inuu dareemayo kalsooni daro uu ku qaba naftiisa, taasi oo ay sababtay hadaladii iyo jeeskii joogtada ahaa ee uu kala kulmayay ardaydii asxaabtiisa ahayd. kadibna si uu ugu soo celiyo kalsoonidiisa, wuxuu ugu qoray warqad dhowr sadar oo gabay ah. kadibna wuxuu ku yiri usoo xifdi gabaygan sida magacaaga, hana u sheegin ardayda kale. maalin kadib waxaa dib la isugu soo noqday fasalkii, wuxuuna macalinkii ku qoray sabuuradda gabaygii uu shalay u qoray ardayga. kadibna wuxuu bilaabay inuu sharxo kuna celceliyo muddo kooban, kadibna wuu tirtiray. markii uu tirtiray, wuxuu weydiiyey ardaydii, yaa xifdiyey gabaygii aan hadda ku qoray sabuuradda oo dib uga celin karaya. dabcan ardaydii oo dhan way aamuseen, maxaa yeelay waqti badan oo ay ku xifdiyaan ama ay kuba fahmaan macalinku horay uma siin, taasoo mustaxiil ka dhigtay inay xifdiyaan. muddo yar kadib waxaa gacanta si xishood iyo noqnoqosho ku jirto u taagay ardaygii uu shalay macalinku sida sirta ah ugu qoray gabayga. dabcan sida aad ku fikiraysid daawade, ardaydii mid walba wuxuu bilaabay inuu hoos u qoslo, iyagoo aaminsan in waxa ay iyagu xifdin waayeen aysan macquul ahayn in uu isagu xifdin karo. laakiin wuu akhriyey, wuuna dhammaystiray, taasoo la yaab iyo filan waa ku noqotay qof walba fasalka joogay. macalinkii wuxuu bilaabay inuu ammaano, wuxuuna ardaydii faray inay u sacabiyaan, iyagoo aad ula yaaban, rumaysan la'na inuu awooday xifdinta waxa ay iyagu awoodi waayeen. wuxuuna macalinkii ahaa mid maalin walba tallaabadaasi sameeya. wuxuu si qarsoodi ah u siin jiray cashirka beri, isaguna wuxuu ahaa maalin walba ardayga keliya ee fasalka loo sacabiyo. waxaa ku bacday kalsooni
kalsoonidii uu ku qabay naftiisa, wuxuuna yeeshay dhiiranaan iyo geesinimo baaxad weyn. Waxaa kobacday aqoontiisii iyo falcelintiisii fasalka. Wuxuu garowsaday inuu awood u leeyahay inuu la tartamo ardayda kale ee fasalka ku wehelisa, uuna ka badbadin karo. Waana tallaabooyinka uu ku guuleystay xaqiijintooda, isagoo noqday mid garowsada inuusan ahayn doqon aan caqli badan lahayn sidii uu ugu yeeri jiray macalinkiisii hore. Kalsoonidii iyo dhiiranaantii uu yeeshay waxay ka dhigtay mid xaqiijiya guulo isdaba joog ah. Wuxuu ka mid ahaa ardaydii ugu sareysay fasalkiisa imtixaanka. Wuxuu ka qalin jebiyey iskuulkii. Wuxuu bilaabay jaamacad. Wuxuu qaatay master. Wuxuuna bilaabay diyaarinta darajada ugu sareysa waxbarashada ee PhD-ga. Waa hubaal daawade inay tahay sheekadani mala awaal, laakiinse waxaa xaqiiqo ah inay ka turjumayso adag ee dhalinyaradeena. Badanaa inta haldoor ee jees iyo qosol aan micno lahayn aan ku duugnay haldoornimadoodii. Badanaa inta hibo ee aan aasnay iyadoo aan weli dhalan. Badanaa inta maanta dhalinyaro derbiyada iyo jeelasha u jiifta dhaqamo aynu inagu sabab u ahayn, sidoo kalena aynu ka dhignay kuwa aamina inaysan wax qiimo ah ku dhex lahayn bulshadooda. Imise arday baa maanta sida ardaygaasoo kale la ildaran dhaqamada guracan ee asxaabtooda, welina aan nasiib u yeelan helidda macalinkii garab qaban lahaa sida macalinkaasoo kale. Ogsoonow daawade in rajada iyo iftiinka yar ee aad u ifisid qofka rajo dhigay nolosha, waayeyna kalsoonidii uu ku wajihi lahaa maalmaha iyo duruufaha adag ee ay noloshu leedahay, ay kun jeer ka qiimo badan tahay inaad siisid dhammaan hantida taala adduunka oo dhan.